bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wanaagsan daawadayaal waa arbaco ay taariikhdu ku beegan tahay 9ka bisha 9aad ee September sanadka 2020 qodobada wararka maanta idin heynana waxaa kamid ah wararkii ugu dambeeyay shirka ay Baydhabo ku yeelanayaan madaxweynayaasha lafta gareen qoorqoor iyo madaxweyne Waare waxaan sidoo kale maanta wararkeena ku eegi doonaa dawladda sida dhabta ah uga shaqeysay inay Muqdisho Khamiista isugu yimaadaan dhammaan madaxda maamulada iyo kuwa dawladda dhexe madaxweyne Farmaajo oo la sheegay inay dhammaan ka soo xirxirmeen albaabadii muddo kororsiga xog ku saabsan madaxweyne Farmaajo oo xanibay lacag bangiga adduunka uu siiyay maamulada dalka iyo sababta ka dambeysay oo la ogaaday xog culus oo ku saabsan madaxweyne Farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda Fahad Yaasiin oo go'aan ka gaaray qorshe lagu soo xirayo madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida oo si degdeg ah ku gaaray qaybo kamid ah gobolka Gado iyo maamulka Hirshabeelle oo shaaciyay qorshe ay al-shabaab ka lahaayeen qabsashada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe waa hagaag daawadayaal intaas daawateen hayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn iminkana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo intaas ka faahfaahsan haddii ay tahay booqashadaadii ugu horeysay channelkan YouTube subscribe saaro inagu soo biir si aad u hesho wararka iyo xogaha aan halkan aalaaba soo gelino idinkuna aad mahadsantihiin mar kale kulanti wanaagsan waxaan ku bilaabayaa maanta wararkeena waxyaabihii ugu dambeeyay ama xoogihii ugu dambeeyay ee laga helayo shirka Baydhabo ee ay ku yeelanayaan madaxda Hirshabeelle Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Galmudug iyo waxyaabaha ay markaasi damacsan yihiin hogaamiyaasha maamuladaasi madaxweynayaasha saddexda maamul goboleed ee Galmudug Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo Hirshabeelle ayaa shir lama filaan ah waxa ay maanta ku yeelanayaan magaalada Baydhabo xilli la sugayay inay tagaan magaalada caasimadda ee Muqdisho oo uu ku casuumay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shirkan ayaa la sheegay inuu qaban qaabinayo madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen kadib markii uu soo jeediyay Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor kadibna lagu qanciyay madaxweyne Maxamed Cabdi Waare iyadoo ujeedku yahay inay markaasi muujiyaan sida ay u diidan yihiin shirka Muqdisho ee ay madaxweyne Farmaajo ku qasbeen inuu qabsoomo madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland xogta la helay ayaa sheegaysa in madaxweyne Farmaajo uu si hoose u taageersan yahay shirkan isla markaana doonayo inuu si kala fogeeyo shanta maamul goboleed oo laba qaybood u kala jabay si heshiis guud aan looga gaarin doorashada ee la filayo in dalka ka dhacdo dhamaadka sanadkan iyo horaanta sanada soo aadan ee 2020 madaxweynaha Galmudug ayaa ah ninka saldhig u ah hindisahan ee siyaasadeed iyo diidmada Muqdisho isagoo ka careysan laba arrimood oo ku saabsan fursadda iyo soo dhaweynta weyn ee loo sameeyay madaxda Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo diidmada ay labadaan nin diideen shirkii Dhuusamareeb 3 lafta gareen iyo qoorqoor ayaa marka ay la hadlayeen beesha caalamka waxay si cad u sheegeen inay ka soo horjeedaan qorshaha doorashada ee madaxweyne Farmaajo halka madaxweyne Waare uu yahay midka kaliya ee sida buuxda u taageersan madaxweyne Farmaajo laakiin waxa ay saddexdoodu ka midaysan yihiin marka miiska wada hadalka la yimaado inaysan ka hor imaan arrinka uu wato madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in la furfuro qodobadii shirkii Dhuusamareeb 3 oo dib loo saxo iyaga oo fadhiya waxay wajigabax ku tahay saddexda madaxweyne ee ku shiraya magaalada Baydhabo waxayna guul siyaasadeed siinaysaa labadii madaxweyne ee diiday shirkii Dhuusamareeb 3 in shir markaas dhexmara Farmaajo Qoorqoor iyo Axmed Madoobe ay markaasi in shir dhexmara madaxweyne Farmaajo Dani iyo Axmed Madoobe go'aan doorasho ka soo baxaana waxa ay waxba kama jiraan ka dhigaysaa shirka Dhuusamareeb iyadoo miiska siyaasadda u weecinaysa madaxda halbeel shirka Baydhabo uga furmaya saddexda madaxweyne waxa uu u muuqdaa mid aan markaasi dhaafsiisnayn door ay Qoorqoor Laftagareen iyo Waare raadinayaan laakiin ay hore u lumiyeen markii ay isku dhiibeen madaxweyne Farmaajo balse shirkooda ayaa ku dhamaan doona sida uu Farmaajo rabo amaba ugu badnaan inay markaasi faragelin doonaan amaba ay faragelin ka heli doonaan beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka oo siyaasadda Soomaaliya si aad ah u taageersan markaana hadii aynu eegno shirka Khamiista magaalada Muqdisho uga furmaya madaxda dawladda federaalka ah iyo kuwa maamul goboleedyada waxaan eegi doonaa dawladda sida dhabta ah ee uga shaqeysay in Khamiista ay isugu yimaadaan Muqdisho ee dhammaan saamilayda siyaasadda madaxda maamul goboleedyada Muqdisho waxay u imaanayaan rabitaanka madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii filla Soomaaliya ay shaacisay in Khamiista soo aadan ay markaasi Muqdisho martigelin doonto shir weyn oo ay isugu imaanayaan madaxda dawladda dhexe iyo kuwa dawlad goboleedyada dalka Khamiista soo socota sida la sheegay waxa kulmaya madaxda maamul goboleedyada iyo waliba sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo uu heliyo gudoomiyaha gobolka Banaadir qaar kamida madaxda maamul goboleedyada oo aan la hadalnay
ayaa waxay sheegeen in Muqdisho aysan ku tagaynin rabitaankooda iyo rabitaanka Farmaajo balse Mareykanka uu gadaal ka riixayo inay markaasi xamar yimaadaan. madaxda maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland ayaa Muqdisho yimid kadib markii lagu canaantay inay ka maqnaadeen shirkii Dhuusamareeb 3 oo qaswadayaal lagu tilmaamay taasoo muujinaysa inay iyaguna doonistooda aysan xamar u aadin ama xushmad ay Farmaajo u hayaan balse ay ka cabsadeen dawladda Mareykanka. isku xirka iyo rabitaanka shirkan uu markaas ku qabsoomayo waa fikir ee Mareykanka ka yimid waa sida ay qabaan qaar kamida madaxda maamul goboleedyada. natiijada laga filan karo ayaa aad loo dhowrayaa shirkaasi. dhinaca kalena madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la sheegay inay ka soo xirxirmeen dhammaan albaabadii muddo kororsiga. Farmaajo ayaa markii uu arkay inuu ka sii dhamaanayo muddo xileedkiisa isla markaana lumiyay kalsoonidii shacabka ayaa la soo baxay siyaasad cusub iyo xeelado uu dib ugu dhigayo doorashooyinkii dalka ka dhici lahaa dhamaadka sanadkan iyo horaanta 2020-2021. waxa uu ku tuuray wadanka meel adag oo hubanti la'aan doorashaha isagoo oo sameeyay wax kasta oo suurtagal markaasi ka dhigaya in dib loo dhigo doorashada soo socota isagoo oo markaasi doonaya in kursiga uu ku sii fadhiyo. bishii Juulaay 25-keedii Farmaajo ayaa ka taqalusay ra'iisul wasaarihii waqtiga dheer markaasi la soo shaqeeyay ee Xasan Cali Kheyre kadib markii golaha shacabka si lama filaan ah looga meel mariyay mooshin kalsoonida ee looga noqonayo Xasan Cali Kheyre oo lagu tilmaamay inuu ahaa mooshinkaasi mid sharciga ka fog. madaxweynaha ayaa sidoo kale kala qaybiyay labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya isagoo ka dhigtay golaha shacabka wadadii uu u mari lahaa muddo kordhinta maadaama ay hogaamiyahan laba nin oo daacad u ah uu haysto waana Mursal iyo Muudey. Farmaajo ayaa kala fogeeyay madaxda maamul goboleedyada oo qaar ka dhigay cadow qaarna markaasi soo dhaweystay waxa uuna ku beeray jahwareer dhinaca waliba ah oo uu markaasi ku fashilinayo mucaaradka iyo saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka oo iyaguna ku kala qaybsan siyaasadda Soomaaliya. geesta kalena madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uu xanibay lacag bangiga adduunka oo ugu tala galay maamul goboleedyada dalka ka jira. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa waxa uu hakiyay malaayiin dollar oo bangiga adduunka ugu deeqay sanadkan in lagu kabo miisaaniyad sanadeedka 2020 ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada xilli lagu guda jiro marxalad doorasho. warbaahinta ayaa ogaatay xog ku saabsan cadadka lacagta uu Farmaajo xanibay oo ku jirta hadda bangiga dhexe ee Soomaaliya waxaana arrintan ay qayb ka tahay khilaafka u dhaxeeya dawladda federaalka iyo maamulada dalka ka jira. lacagtan oo gaaraysa 55 milyan oo dollarka Mareykanka ah ayaa bangiga adduunka waxa uu ugu tala galay kabka miisaaniyadda Soomaaliya waxaana loogu qoondeeyay sida loo qaybsanayo shir socday 2 maalmood taariikhdu markii ahayd 11 ilaa 12 bishaynu ka soo gudubnay Agoosto oo Muqdisho ay ku yeesheen wasiirka markaasi maaliyadda Soomaaliya iyo wasiirada maaliyadda ee dawlad goboleedyada. lama oga sababta Farmaajo u joojiyay bixinta lacagtan laakiin macluumaad aan helnay ayaa waxay sheegayaan in madaxweynaha uu doonayo in dib loogu noqdo qaabka loo qaybiyay oo ay markaasi ka muuqato in maamulada qaar sida Puntland iyo Somaliland sadbursi loo sameeyay. markaana waxaynu eegaynaa xog ku saabsan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo iyo taliyaha NISA Fahad Yaasiin oo go'aan ka gaaray qorshe lagu soo xirayo hogaamiyaha Jubbaland Axmed Madoobe. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo taliyaha nabad sugidda iyo sirdoonka ee qaranka Soomaaliyeed Fahad Yaasiin ayaa markaasi ka laabtay go'aan ay ku doonayeen in lagu soo xiro madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe oo wada tashi arrimaha doorashooyinka ku saabsan Muqdisho u jooga. madaxweyne Farmaajo oo aragtidan u soo jeediyay Fahad Yaasiin ayaa markii dambe laga gaaray go'aan kama dambaysa kadib markii laga baaqday in khalkhal amni uu galo dalka isla markaana wada hadallada socday noqdaan kuwa fashilma. sidoo kale taliyaha NISA Fahad Yaasiin ayaa kula taliyay madaxweynaha wax kasta in wada hadal lagu dhameeyo isla markaana aan markaasi khilaafka u dhaxeeya Jubbaland iyo dawladda federaalka aan hore loo sii wadin. Axmed Madoobe madaxweynaha Jubbaland ayaa ciidamo badan oo ku hubeysan hubka culus iyo kuwa fudud waxa uu la yimid magaalada Muqdisho waxayna si feejigan ula socdaan dhaqdhaqaaqa madaxweynaha iyagoo mararka qaar taag geliya goobaha uu booqanayo madaxweynaha Jubbaland. Axmed Madoobe ayaa deegaan u ah guri ku dhex yaalo madaxtooyada Soomaaliya oo uu degan yahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo halkaas oo si weyn loo ilaaliyo. natiijo xumo ka dhalatay doorashadii sanad ka hor ka dhacday magaalada Kismaayo ayaa sababtay inay dawladda federaalka cadaadis xoogan ay saarto madaxweynaha Jubbaland oo afduubtay doorashadaas waxaana magaalada Kismaayo iyo deegaanada kale ee Jubbaland lagu soo rogay xayiraad dhanka duulimaadyada ah. shirka Muqdisho oo ay garwadeen ka tahay beesha caalamka gaar ahaan Mareykanka ayaa meel xasaasi ah maraya
wuxuuna weli markaasi ka furmi laayahay shuruudo adag oo ay wataan Axmed Madoobe iyo Saciidani inkastoo fila Soomaaliya ay sheegtay in qamiista soo aadan markaasi uu si rasmi u furmi doono shirkaasi. ugu dambeyntiina maamulka Hirshabelle ayaa shaaciyay qorshe ay al-shabaab ka lahaayeen qabsashada degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wasiirka amniga dowlad goboleedka Hirshabelle ayaa ka hadlay weerarkii ay waabarigii shalay dagaalamayaasha al-shabaab ku qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Maxamed Cabdiraxmaan Khayre oo ah wasiirka amniga Hirshabelle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalamayaasha weerarka soo qaaday aysan u suurtagelin inay magaalada gudaha u galaan. wasiirka ayaa sheegay in hadafka al-shabaab uu ahaa inay qaraxyo ku xiraan buundada magaalada Balcad balse aysan taasi u suurtagelin. waxa uu sheegay in khasaaraha dhanka ciidamada dawladda uu yahay hal askari oo dhimasho ah iyo 3 kale oo dhaawacantay. dhowr jeer oo hore ayay al-shabaab weerar ku qaadeen magaalada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe. dhinaca kale war ka soo baxay al-shabaab waxaa lagu sheegay in weerarkii shalay ay ku qaadeen Balcad ay ku dileen 4 askari oo ka tirsan ciidanka dawladda. dadka deegaanka ayaa sheegay in kooxihii dagaalka soo qaaday ay u suurta gashay inay qabsadaan dhowr xaafadood oo magaalada ka tirsan isla markaana ay maxaabiis ka sii daayaan xabsiga ee magaalada Balcad ee gobolkaasi. wararkan warar la mid ah intaan mar kale ku kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.